qoorgaab waxa hadii ilaahay ka dhigo aynu imka u galeynaa laamihii aynu siin doonaa aynu geli doonaa laakiin waxaan ka horeysiinayaa laamaha waxa weeyaan guddi cusub aynu dooranay iyada shirka inoo soo gunaanay doona gudoomiyaheenu laakiin imka waxaan siin doonaa microphone-ka la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrimaha dhaqaalaha Axmed Xasan Carwo oo kelmad kooban insha Allah halkan inaga yiraahdo oynu guulana ka gaadhnay meelo badan oo carqalado badan aynu soo marro aynu soo dhaafnay inay maanta ay guul inoo tahay inaynu cusboonaysiino dadkii campaign-ka inoo gali lahaa dadka isu ururin lahaa guddi cusub inaynu u dooranno oo magaalada Bristol ay sarafta badan ee rag iyo dumarba caanku ka kulmiyanimadooda inay maanta aynu halkan isugu nimaadno sharaf weyn bay tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dadkii soo abaabulay iyo qoladii qabaqaabayaasha shirka iyo guddidii qabaqaabada intaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baan idin leeyahay waxa iigu xiga ereyadaan doonaya inaan tilmaamo horta ta ugu horeysa waxa weeye arrintii gaashaanle cabdirasaaq yuusuf casiir ilaahay naxariistii jannaha siiyo dadkeena waxay ku noqotay naxdin weyn bay ahayd si wanaagsan baa laakiin looga hawlgalay waxaan ku mahadinayaa ciidanka booliiska ee ku guuleystay inay soo qabtaan dadkii falka geystay oo saddexdii ugu dambeysay marka ay ku Facebook aan ka arkayay saddexdii la doonayna la soo qabtay oo dhamatay oo jawaabiya qaldan inta uu jawaabaysa ayaa qalad kale qofku haduu geeriyay hadalada ka dhaca xumaantu maarag xumaan kama aha marka inta jawaabaysa jawaabta bixinaysa ama Facebook ka bixiso ama media ka bixiso inta qaladka keenaysa waa dadka uu jawaabaya waxaan leenahay arintaasi dhamaantii wayna damaqday waana laga hawlgalay waan ka bogsoonay insha Allah ta'ala ana dadkii xalka geystay cadaaladda la marin doona inta markan kaga baxo xisbiga gudiyadan maanta aynu dooranay waxa weeye gudi hawlo badan laga sugaayo waxa laga sugayaa ma aha uun markii hore mucaarid baynu ahay inagoo mucaarid inay ku guuleysanay maanta inagoo dawladnimada hayna inay ka badiyaan foodka intii aynu 100,000 aynu dheereen udub mid ka sarreysa la doonayaa inaynu gaarsiino waa inaynu gaari karaa waxaynu ku gaari karaa markay xukuumadda iyo xisbigu wada shaqeeyaan maanta wada shaqeyn xoog la ka dhaxaysa wada shaqeyn xoog leh ayaa ka dhaxaysa oo wax carqalado badan baa la soo maray waa laga gudbay dhammaanteen dadkii kulmiye ahaa inay isku soo noqdaan oo ay saamaxaan oo ay arkaan in tartanka cid ay la geliyaan ayna kulmiye ahayn maanta kulmiye tartan gudihiisa ayuu dhamaaday inaguma jirto tartanka waxaynu la geenaa laba xisbo kale inaynu aragno labada xisbo kale tartanka aynu la gelayno si aynu uga guuleysan lahayn oo inagu gudaheena dib dambe isugu noqono inaan isku habsaamin baa la doonayaa in meel kastaba gudida shaqeynaysa la isbarbar taagan la doonayaa in wixii gudiduna ay noqoto gudi dulqaad leh oo wax dhageysata oo wax maqasha oo dhaliilaha loo sheegayo qaadata ayaa loo baahan yahay cid midida daabkeeda haysa ma aha gudiya ma aha waa shacbi weynaha waxaanu ku kasbaynaa in dhaliishoodana dhageysano toosintooda dhageysano aynu u nuglaano oo aynu maqallo waxay ka cabanayaan iyo waxay doonayaan si aynu u helno barnaamij siyaasiya oo aynu ku hawlgalno oo aynu bulshada ku qalcino dadka kala saaramaha dadka xisbiyada xisbi walba dadkiisu uu haystaa dadka aan xisbiyada ahayn ba kala saara dadkaasina waxay kugu raacayaan waxqabadkaagii iyo sidoo la hadasheed u ixtiraamtay marka waxaan doonaynaa cid waliba inay noqoto ambassador ka hawlgala oo dadka loo maxal la dhageysto oo la ixtiraamo oo dhaliisha aynu qaadano oo khaasatan dadkeena reer galbeedka ku koray aynu dabeecadda aragno dimuqraadiyadu markay shaqeynayso in prime ministerka xataa beed la dhaco waa yarun iska biyo daqiiq la dhaco la caayo wax walba lagu yiraahdo ay inagu dad islaamayno iscaayimayno waxna isku tuurtuuri mayno laakiin dulqaadkeedina la nimaadno oo dadkeena dhageysano oo inaan noqon uun dad uun iyagu is qanciyo oo iyagu is amaana ee dhaliisha dadka kale ay noo sheegayaan aynu ka hawlgalno sideen dhaliisha u daweyn lahayn waxaan filayaa oo aad iyo aad u jecelahay in maanta anigu salaanka waxaan idinka gaarsiin doonaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka salaan u gudbin maayo iyagaan ka wakiilhay salaanta idinku gudbiseen waa idinka gaarsiin doonaa meel walba waa laga salaamaa meel walba waa lagu duceeyaa meel walba runtii dad sharaf badan oo reer Soomaaliland madaxdooda aad uga dambaysan weeyay gudoomiyaha xisbiga oo maanta murashaxinoo ah iyo madaxweyne ku-xigeenka